ummadaha adduunka oo qurqurxoonad aragteen oo aan mar walba wallaahi magaalada waa ku daalaye muqdisho waxeeda bal aan ka soo hawo badasho oo aan aado muxuu ahaay meel hebel ama diaspora hadduu ahna baasboorkiis meeshu ka soo qaatay inuu ayaanto ku soo nasto u tago haddaanu ahayna tigid iyo visa inta qaatay inuu tago bilaahi calaykum maxaa noo diiday annaga kuwa loo imaanaya inaan noqonno kuwa la soo aadayo oo loo imaanayo oo yurub markay qabowga iyo barafka ka dhacaya ay halkan yimaadaan oo caalamka carabta iyo khaliijka marka kulaylka aad u fara badan uu ka jira ay soo baxaan ay halkan yimaadaan maxaa noo diidaya ilaahayaana siiyey fursaddaas oo kii qabow ka soo cararana uu imaan karo kii kuleyl ka soo cararana meel uu imaan karo oo sanadka 12 bilood aadan shaatiga iska bedelayn dharkii samarka dharkii winterka dharkii maxaan ku raahdaa foolka dharkii hebelowga aanan lahayn annagay nagu xiran tahay waxaan rabaa marka 2060 Soomaaliya aan qaabaynayna maanta ka shaqaynayna waxaan ka bilaabaynaa oo bilow ka ah maanta horta inaan ka hadalno shabaabka dalka markaan ka xoreyna ka bacdi maxaan samaynaynaa deynta marka nalaga cafiyo kadib maxaan samaynaynaa waa seef laba afley ah shabaabka dalka haddaan ka xoreynana qaabdarrana waa qabnaa waa aadi karnaa waddo qaabdarro lagu tagana waa furan tahay waddadii aan rabnay oo ciziga iyo karaamada iyo sharafta lagu tagaayana waa furan tahay khiyaarka ama doorashaduna annaga iskale nalo caliyaa ilaha iyo caashaa ilahayd wax macna nin daalay warkiisu waaye iyo nin xikmad waaye nin caqli waaye warkiisu waaye hebelaa ilahay waxba laguma lahaa karo wixii ilaahay kuu qadaray unbaa ku ahaa karo iyo waxaad adigu kasbatay ilaahay laba waa yuwaadaa laakiin ma yeelaa la dhahay ilaahayow cibaadaysan maayee hay cadaabin ilaahay gaalka kaafirka ah inuu jannada dalaqsii waa awoodaa ilaahayow guursan maayee ha igablamin ilaahay adoon guursanin inuu ilmo ku siiyo waa awoodaa horaa loo soo yeelo waa la soo arkay laakiin ilaahay muxuu yidhi janno maa rabta haa waddadaasaa jannada tagta mar ku soco ku tag haddaad ku tegi wayso waddada kale waa taas naaray ku geynay adigaa khiyaarka lagu siiye marka inaad taranta maa rabtaa haa sidaasaa loo tarmaa wiil iyo gabar waddada ku tarmi karaan oo dadku ku tarmo waa waddadaas waddo kasta laguma tarmi karo waddadaas mar waa tarmaysaa haddaad mari waysa tarmi maysid maxaan ku rahdaa cudurro iyo aidis iyo qaabdarro iyo waraxan loo jooginaad u tegaysaa waddadaas kale ka leexo waa tii ilaahay ka deyriyo waa qoomuluud iyo wixii la xiriiray iyo qaabdarro kale waay ha aadin laguma tarmo annaga maanta waxaa noo yaalla waxay tahay war waddadii fiicnayd oo jiilal fiican iyo sharaf iyo karaamo fiican dadkeenna aan uga tegi lahayn waa noo tilmaamanta aan yeelno berri shabaab muggaan ka baxno laba waddaa noo kala furan inaan xumaantii shabaab xumaan kale ku bedelno iyo inaan wanaaggii aan rabno maanta nafta u hurno wiilashaas cadcad iyo odayaashaas sharafta leh ay u dhammaadeen iyo gabdhahaasi inaan qaadno taladeeda waa qodob deynka haddii naga cafiyo 5 bilyan oo dollar ayaan dhowr iyo 10 sano cafinteeda la tacaaluhaynaa oo 40 sano 50 sano 60 sano ka hor aan qaadanay yaan waxaan la tacaalaynaa sidii iskama gudi karna ee hanalaga cafiyaan leenahay maxaana looga cafinayaa si aan fursad u helno aan deyn kale u qaada karo deynka kale oo aan qaadanno laba waddo noo furaya waddo horumarin ah oo ah korontadeenna muxuu warshada ma kici kartaa lalahaayo koronto warshada kicisa inaan samaysano baddaan intaasoo 100 kun oo tan oo kalluunaha ku jirtaa la yidhi sooma qabsan karne qaab aan ku soo qabsanno iyo si aan ku yeelano inaan yeelano khayraad beeraan leenahay baahina waa nahaydaye inaan beera tacbanno aadnan dibadda u dhoofsanno iyo muxuu ahay inta ka sii badan liisku waa dheeryahay
labaa marka noo furan inaan deyn inta soo qaadano bishii mushaar u kala qaadano iyo gargaar iyo mucaawano ku bixinno na lagu lahaado sanadka dambe haddana mid kale soo qaadano sanadka ku xiga soo qaadano 20 sano kadibna la yiraahdo 5 bilyan aan la tacaalinay 500 bilyan oo deyn ahna lagu leeyahay hana laga cafiyo haddana jidkaan u soo istaagno labada wada ee noo furan labadaas wada waay go'aan inaan ka gaarno oo deynkaas aan qaadanaynahay sidoo wax soo saar u yeelan lahaa dawladdu inay deynka inta qaadato ay iska mishaarsato ma aha dawladdu deynka hadday qaadato waa inay ku bixisaa adeeg bulsho jaamacada ku dhistaa iskuulaad ku dhistaa muxuu xarumo cilmi baaris ku samaysaa qofka Soomaaliga wax la baray productive wax soo saaruu noqonaa wax soo saarkaasaa dawladdu cashuur ku leedahay cashuurtaasaa dawladda wax u ah dadkeena shaqo ma qabno shaqo la'aan baagamundada cawada oo shaqo la'aanta wasiirku uu caawa tilmaamay cadadkeedana laakiin su'aalaha meesha ku qarsoon dadkeenu ma shaqaaleysmaa ma leeyahay xirfadihii oo shaqo haddaad u abuurta xataa maanta dalka shabaab mugan ka raacdayno kow shaqooyin badana abuurmayo xirfadihii shaqo haddaanan lahayn soo ajnabi noo imaan maayo ilaa shaqada in la qabtaan rabnaa guriga in la dhisaan rabnaa wadadii in la dhisaan rabnaa dekadii in la dhisaan rabnaa maxaan ku radaa airbortkii in la dhisaan rabnaa maxaan korontadii in maxaan ku radaa la kiciyaan rabnaa biyihii nadiifka in la helaan rabnaa adeegii caafimaad in la helaan rabnaa waxaan akhrinay statistics hal dhakhtar iyo hal gabar oo umuliso ah 10,000 oo qofood oo Soomaaliya ku aadayeen dhaqaatiirteena umulisaasheen marka la isku fiiro xamar ha fiirinin Soomaali miyigay ku nooshahay miyigana dhakhtar ma jiro umulisana ma jirto dhakhtar Soomaali iyo umulisa Soomaaliya jira sidaas daraadeed waxaan u aragnaa markaan fiirinayna dhaqaatiir badan aan qabnaa hadana oo qaarkood in badan ka mid ay magaaladan baagamundo ku yihiin shaqo la'aan ku yihiin laakiin meesha shaqada jirta aanay tegi karin sidaas daraadeed dawladdu waxa ay u qaadan karta deynka qaybta ay ka qaadan karto waa qayb wax soo saar waa maxay tamarta aadanaha in la horumariyo dadku inay caafimaad qabaan ay shaqaysan karaan caafimaad loo helo inay wax yaqaanaan xirfada leeyihiin ay ku shaqaystaan ama dawladda u shaqeeyaan ama private u shaqeeyaan ama company ajnabi u shaqeeyaan ama xataa ugu yaraan dibadda shaqaha u aadeen laakiin waa inuu xirfad leeyahay adduunyada dada injineero dhaqaatiir professor dhoofiya annaguna domestic workers aan dhoofinaa shaqaalaha guryaha ka shaqeeyo nadiifiye ilmahaye qof waayeel xanaaneeye darawal iyo wax la mid ah dawladdu hadday marka qaadanaysa deynkeeda ma sii gelin laakiin deynka intiisa badan private-ku aada warshadu aada maxaan ku wax soo saar beereedu aada wax soo saar badeedu aada wax soo saar xoolo aada xooliyo nool yaan dareerinaa dhoofinaa haddaan Soomaaliya ku qalno ee hilib aan dhoofi tagno hilibku neefka hilibkiisa iyo neefka nool horta hilibkiisa qaalisan shaqa waa laga helo intaasoo qofoodoo shaqaalaha ka shaqaysay si hilib loo helo inta qofoodoo shaqaalaha ka shaqaysay dawladda cashuur ay ka qaadatay ninka ganacsadaha warshada iskalena cashuur kale ay dawladda ka qaadatay dhoofka dibadda loo dirayna dawladdu lacag adag ay ka heshay waa hilibkii maqaarkii ka waran qoobabkii muxuu xoolaha ka waran uuskii iyo dhiiggii iyo maxaan ku rahdaa bacrin loo bedelay ka waran meeqa warshadoodaa ka dhinac samaysmay neefkii noolaayo shalay asoo bacaac dhahayo aad dirtay haddii aad inta uga shaqayso waa kasnaa waxa suurtagalka ah ee fursadaha aan leenahay waa kasnaa waa ujeednaa waxaa naga dhiman inaan karnaa naga dhiman ma maqli jirteen reer hebel waa kasaan laakiin ma karaan reer hebelna waa karaana ma kasaan war annagu wixii waa kasnaa inaan karnaa naga dhiman inaan kari weyno duruufo qaarkeed nagu kalifana waa jirtaa dadka ana waa jirtaa